kulan wacan daawada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan janaalada ilayska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada meel walba oo joogtaan maalin wanaagsan warbixinadana maanta ku soo dhawaada ee laga qorxanta jalayaasha filmada soo baxay filmada kale xiiso leh iyo waxyaabaha kale aan xiiso leeyihiin oo aad la wadaagi kartiin daawadaashana ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ilayska xogaha meel walba oo joogtaan maalin wanaagsan waxaanu ku bilaabi doonaa warbixintan filimka Shaaruqan ee Batan ayaa waxaa la sameeyay bananbax ka dhan ah jilaagaas in filimka sidoo kale lagu sameeyo in aan la joojiyo oo aan la daawanin taas oo sidoo kale codsanay qaar ka mid ah shacabka kuwaas oo bananbax ka sameeyeen iyagoo ka soo horjeeda filimka Shaaruqan halka Bollywood ka qaar ka mid ah ee sidoo kale taageera Shaaruqan ee san jooji waayeen xiisaha iyo jacaylka uu qabeynaa filimka Batan ayaa sidoo kale dhinaca kale waxaa jirta in filimka markaan uu dhibaatooyin dhaxda uu ka galay sidoo kale filimkani lagu haysto arrimo la xiriira argagixisnimo ee qaybta Hindiya waxaana u dhigantaa in qaybta Indore ee markaan ay rabaan in dhibaatooyin filimkaasi u keenaan iyagoo sidoo kale qaar ka mid ah kooxana ee markaan ay rabaan in filimkaasi dhammaan la joojiyo sidoo kale aan la soo fasixinba halka sidoo kale sababaha ku diidan yihiin filimkaasi uu yahay in ay qayb ka tahay heesta Beshram Rangi taas oo sidoo kale kala soo muuqatay tirshada Deepika Padukone kaas oo wada dhar bikini am dharka nooca dabaasha ah waxa u dhigantaa in group la baxa magaca Fir Shivaji group kuwaas oo qorsheeyay bananbax ka dhan ah iyagoo soo kalaamida iyo isgoosida ka dhigay qaybta Indore ayaa waxay markaan gubeen boorarka heesta filimkaasi superstar Shaaruqan waxaana soo kale jirtay in ku andacoonayeen in heesta Beshram Rangi ahayd mid markaan uu ka soo muuqday Shaaruqan soo kale Deepika Padukone ahayd mid dhibaatooyin sidoo kale u gafaysa maalin lagu dhacay arrimaha Hinduuga idoo sidoo kale sheegay in ummadda Hinduuga dhibaatooyin ku tahay heestaasi sidoo kale waxaa jirtay in ay codsanayeen in filimkaasi lagu sameeyo ban ama in la iska joojiyo oo aan la soo fasixin waxaa sidoo kale jirta in filimkani la daawan doono January ee sanadda soo socota Shaaruqan ayaa la ogeyn waxyaabaha dhabta ah lagu haysto asaatay arrintan ayaa waxay ku qotantaa in jalaagan uu yahay muslim sidoo kalena lagu marsiyoona in Hinduuga uu gafayo sidoo kalena ay tahay filimkiisa saas lagu joojiyo oo la markaan filimkiisa bookad lagu sameeyo inay abuuraan in isku dayaan waxaana arrintan aysan ahayn markii ugu horreysay oo Shaaruqan lagu dhago sidoo kalena arrimahaasi la xiriiriyo inuu u gafayo qaybaha Hinduuga maadaama loo saarnay inuu yahay jilaa muslim ah sidoo kale waxaa jirtay qaybta Madhya Pradesh wasiirkeeda Narottam Mishra uu kala hor sidoo kale uu ka hadlay arrinta la xiriirta heesta jacaylka sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha diidmadiisa ku qotantay in dharka qaabka u soo labisay Deepika Padukone sidoo kale heesta naftigeedana uu sheegay inay tahay mid uu xilli uu kaga hadlay arrimaha media waxa uu sheegay inuu dareemayo in magaca heesta Beshram Rangi sidoo kale tahay mid diidmo ah sidoo kalena dareenkeeda wadato waxaan sheegnay heestan ay tahay mid ku abuuran arrimo la xiriira mid dhibaatooyin u geysanaysa qaybta maskaxiyaan ahaan jilaaga sidoo kale atrishada ay wuxuu sheegay in ku markaan dhibaatooyin u geysanay sidoo kale dharkooda ay tahay mid aan u qalmin in heestaasi ku soo bandhigaan oo la jeedo in dhar qaaqaawan ay soo qaateen taas oo sidoo kale aysan ahayn marsiyo sidoo kale aysan ahayn hees noocan ka mid ah oo Hindi ay sameeyaan asaatay arrimaha loo Shaaruqan waxay tahay inuu muslim yahay sida inta ugu badan warbaahinada kale ay qorayaan filimkan Batan ayaa director waxaa ka sidaad anan waxaana soo saarka shabakada ugu weyn Hindi ayaa Shraj Films waxaana filimkan kasoo muuqan doona Deepika Padukone iyo sidoo kale Shaaruqan waxaana doorka xumaanta filimkaas John Abraham kaasoo filimkaas lagu wada in la daawado January 25-keeda 2023 ee sanadda soo socoto وهذا داود إن عكنا وحنا يقدرون أبدأ وحكي سوق ده فيلم كاسترود 2 كاس أوراج كمار هيران عبر شكران مركان وضان إن فيلم كاس دوبستيس بلابان كتب إن داوداش لولو داعي إن فيلم كاسترود وصوص عضو كاس أصدق كل وارك مغالك من فيلم كبيريا كاس أو بيشان كسوق من الداود عيراج كمار رو يسوق عبر شكران يجراك العب الشك بنرجع مركان إيروان إنه دوبست بلابان فيلم كود استري سنة صوص عضو فيلم كان وحو كسبسن هور يسوق الشعترة وطحنا كاس وإلى هاي كاس ومالجلي جناش فيجن شبكة ديس مادك فيلمس فارون دوان أي فيلم كيس وجامي كاي وحو مستو كلا سنة طحنا لقى سمين دانو وحنا سوق العبشك بران وها مثل لابد قيبود هو جامي كها فيلم كاسي وحنا سوق الفيلم كانوا يا مش رادا كبول إنه جامي كنا قندون تطحنا إذا سوق الداوداش واحد بدنا يكون دونان فيلم كان وحيابه وسرقوا كهايو قالوا لو قلنا فيلم كا أي وربهنت وحي وحقيقي إن راج كمارو يسوق العبر شكرانا
isoo kale qaar kamid ah qolada filimka kala soo muuqda ee qaybta horena qayb ka ahaayeen filimka Stray in ay bilaabi doonaan duubista filimkaasi Mars ee 2023 filimkan ay wuxuu yahay mid markaan lagu duubi doono magaalooyinka ugu caansan ee gudaha Hindiya soo kale filimkan wuxuu yahay mid muuqaalis qaar kamid ah lagu arkay filimka Beria halka doorkiisa Raj Kumar Roy iyo Vicky isoo kale Barsha Kurana doorkiisa Bitu ayaa waxay yimid markaan tahay mid qaybta Stray 2 hogaamiye ka noqon doonaan soo kale filimkaas ayaa waxaa qayb ka aan doona qolada kale hore filimka Stray original star cast ku jira ee 2017 kuwaas oo kale filimkaasi qayb ka ahayn filimkan ayaa qorshe wuxuu yahay in Maarso 2023 duubista filimkaasi la bilaabo sidoo kale filimkan ayaa waxaa laga filan karaa in lagu arko waxyaabo la xiriira shactirooyin dhowr oo filimkaasi qayb ka waxaana soo kale haatan filimkan socoto seminaarada loo qaadanayo iyo sidoo kale qaabka hordhaca filimkaasi loo sameyn karo oo kala horena ee socotay 2017 filimka Stray la daawaday wuxuu ku saabsanaa horror iyo sidoo kale shactiro filimkaasi waxaa qoray soo kale director ka ahaa Raj Nimaru Krishnan DK waxaa sidoo kalena filimkaasi hogaamiye ka ahaa Raj Kumar Roy kaas oo doorkiisa ah Vicky halka Barsha Kurana doorkiisa ah Bitu waxaa sidoo kale Abhishek Banerjee lagu arkay labadiis doorba ee filimada Stray isoo kale filimka Beria in magaciisa oo ahaa Janna sidoo kale Sharada Kapoor ayaa doorkeeda filimkaas wuxuu ahaa mid hogaamiye ka ahayd waxaana xigtaan isoo kalena muuqaal gaar ah ee ku lahayd hees ku jirta filimka Beria kaas oo ku saabsan Sumkashwari waxaana soo kale kala soo muuqata Kritisan iyo soo kale Farndon kuwaas oo hogaamiye ka filimka Beria sidoo kale Trishana ay markaan waxay noqon doontaa imtixaanahan markale dib ugu soo laaban doonto hogaamiye ka noqon doonto sidoo kale filimka Stray 2 waxaa la sheegay in muuqaal gaar ah ku lahaan doono Jalaaga Farndon kaas oo markaas sidoo kale xiis u yeelaysa sidoo kale laga yaabo inuu ku balan qaado in filimka Beria qayb labaad laga sii sameyn doono وهاجا داودا ناع كلا قدامبين وحن أيقدنا صار على قان فكرة مسي السكر الجيران جرا فيلم كودا قصلايت أي مركان محل الشيء إن ستوصل على وصف فصيح دونه قيبها أو تيجا فيلم سمياش فيلم كهجامي كين صار على قان فكرة مسي السكر الجيران جرا سين فيلم كودا قصلايت أي مركان محل الشيء إن ستوصل على وصف فصيح دونه قيبها أو تيجا سيدا قرط الشبكة دا بيبي مون دايركتور كفيلم كان سبون كريبلاني أي مركان وحشة فيلم كان قصابسن خيانة مسكحيان تا إن الوصف صحنا نقيبها ديسني بلاس هوت ستار وحنا صوبها فيلم سماش وقصدين إن فيلم كان الوصف صح قيبها أونلاين كان أي وحنا شايفين إن فيلم نوعا وكلا وقصلات وقصابسن هاي خيانة حق مسكحيان كأيهن كوا مركان عن مهم وهن إن قيبات يعترض مركان الله حشو أساتو حشاجين إن يهين كوف عن قيبة أونلاين كي أو تيجا إن الوصف الصحة يقول ستوك لشاجين فيلم كان إنه كوي عندنا قيبات يعترض ويربا مركان إنه كوصف الصحان kaasi u arkay in filimkan hadii tiyaatar la saaro oo san ka sameeyay kan lacag dhowra asaatay filimada noocan u degan ay yihiin kuwa OTT-ga in qof walba soo guriis ku jiro ay tahay in mas'uuliyad uu qaado karo in filimkaas uu dhameysto soo kalena uu daawado filimkan ayaa sidoo kale qolada filimkaas ka soo muuqan doonta ee hogaamiyaha kooda yihiin sida Firanti Sara iyo soo kale jiran garay waxay ku kol hor aan wiligood u wada shaqeeyeen oo ay yihiin fresh marka loo fiiriyo kuwa ka soo muuqan doona qaybaha saashada Kiribalini filimkiisa ugu dambeeyay oo director ka noqday wuxuu ahaa filimka horrorka shactara ku saabsan Boot Police kaas oo ay hogaamiye ka Saif Xaliqan Arjun Kapoor iyo soo kale Jacqueline Fernandez soo kale filimkiisa ugu dambeeyay oo qiyaana oo director ka noqday wuxuu filimka hogaamiye ka Radhika Apte filimkaas oo lagu magacaabo Bobia filimkaas ayaa sidoo kale waxa uu ku saabsan arrimaha qiyaanada maskaxiyaanka iyo soo kale arrimaha cudurka agoraphobia inta aynu kusoo xirnaa daawada muuqaaladana iyo soo kale wararkan ugu dambeeyay maanta laga xariiqay arrimaha Bollywoodka kuwaas oo ahay wararkii ugu dambeeyay maanta laga qoray arrimaha Bollywoodka oo la xiriirana xanta jalaayaasha filimada soo baxay qorshaha filimada waxyaabaha kala san xiiso lahaayeen oo la wadaagay kartiin daawadaashina ku taxambarta ismada filimada meel walba waa joogtaa maalin wanaagsan warbixinta dadkeesha laga noo saara si dad badan u gaaro sidoo kale la wadaaga asxaabtiina oo ku maasantiin alaba sad muuqaaladana u daawataan kankiisa xigana nabadgelyo